Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada asxaabtayda khulaasada filimkani aad ku xiisaha badnaa ee Sebastian iyo Belle. Waxa uu noo marayay Sebastian oo laga ogolaaday in la ogaado Belle inuu yahay mid dad cun ah amaba dad dilaa ah. Kadib ninkii askariga ahaa waxa uu dhibaato u geystay eegii yaraa ee Budgie. Belle-na waa uu xanaaqay, asigana waa uu kala tuuray ninkii askariga ahaa. Intaasi kadib gabadhii yareed ee Lena ahayd ayaa xanuunsatay. Kadibna dhammaan waxay u wada dhaqaaqeen gabadha dhinaceeda. Askarigan waxaa loo diray dhakhtarkii daaweyn lahaa in uu u keeno, halka Sebastian iyo Belle-na ay sii joogeen guriga Lena. Balse intaasi kadib waxaa dhacday markiiba in ay soo baxaan Sebastian iyo Belle, waxa ayna ayagana dhankooda ka bilaabeen in ay soo raadiyaan digtoorkii daaweyn lahaa Lena. Waxa ayna ugu tageen asigoo jooga meel buuro dushooda ah, kaasi oo markaasi ku qaadanayay xoogaa yar fasax ah oo dalxiis ah. Waa ay u imaadeen, waxa ayna u sheegeen in ay gabadhii Lena ahayd jiran tahay, welibana sida ugu dhaqsiyaha badan loogu baahan yahay in uu tago gurigooda. Intaasi kadib waa uu ka ogolaaday digtoorkii, waxa ayna soo mareen meelo aad u halis badan. Ugu dambeyntiina waxa ay imaadeen guriga Lena-na waa la daaweeyey oo waa ay caafimaaday. Kadib Sebastian iyo Lena waa ay ismacsalaameeyeen. Sebastian waxa uu hore u sii watay safarkii uu ku raadinayay hooyadiisa. Asiga muhiimadiisu waxay tahay in uu la kulmo oo keliya hooyadiisa. Waa uu soo baxay asigoonan waxna meel ku ogeen, meesha uu seexan doono xitaa uusan ogeen ayuu waddada soo raacay. Waxa uuna seexday meel god ah. Asiga iyo Belle-na habeenkaasi oo idil meeshaasi ayay jiifeen. Kadib markii uu waaga baryay ayuu soo kacay, waxa uuna hore u bilaabay sida caadadiisa ahayd in uu hore u sii socdo uuna sii raadiyo hooyadiisa. Sidii uu u soo socday ayuu wuxuu arkay guri meel ku yaala. Kadib gurigii ayuu imaaday, waxa uuna meeshaasi ku bartay wiil aad u yar oo magaciisa la yiraahdo Huwan. Waxa uuna ahaa wiilkaasi ari raac, waxa uuna sidoo kale wiilkaasi lahaa Belle oo kale ah, balse eygaasi waa uu jirnaa xilliga ay kulmayeen. Sidaa awgeed Sebastian iyo Belle waxa uu ka codsaday in ay isbuuc la joogaan inta uu eyga saaxiibkiisa ah uu ka soo caafimaadayo. Isbuucii ayuu la joogay Sebastian, markiiba waxaa u suurta gashay in uu garab fiican siiyo wiilka yar ee ari raaca ah. Waxaa xitaa dhacday in ariga la afduubto oona la dhaco, ayaga ayaana dib ugu soo celiyeen asigoo dusha laga saarayo wiilka aad ku yar. Kadib waxaa dhacday in uu ka soo tago Sebastian guriga Huwan, waxa uuna hore u sii watay safarkiisii uu ku raadinayay hooyadiisa. Waxa uuna soo raacay gaari waday yaanyo una socday magaalada. Habeenkaasi oo idilna waddada ayay ku soo jireen. Ugu dambeyntiina waxa ay soo gaareen dhanka iyo magaalada. Magaalada markii ay sidaa u imaadeen ayay dhibaato aad u fara badan faraha la galeen. Dhibaatadaasi waxaa ka mid ahayd in ay markaasina la kulmeen wiil aad u dhib badan, magaciisana la yiraahdo Adolf. Wiilkani cidiisu waa cid taajiriin ah. Kadib waa ay heshiiyeen Sebastian iyo Adolf, waxaana la keenay guriga Adolf. Sebastian waxaa dhacday Belle iyo Budgie-ba in xabsi yar lagu xiro, yacni meelaha xayawaanada loogu talagalay la geliyo, halka Sebastian-na uu si raaxo leh ugu jiifay sariir. Balse Sebastian waa uu adkeysan waayey. Markii dambena waxa uu go'aansaday in uu ka soo dhunto guriga Adolf. Markii ay sidaa dhacday ayaa waxaa markiiba isbedelay xaaladii Adolf iyo gabar yar oo asiga la dhalatay. Waxa ayna bilaabeen in ay soo raadiyaan Sebastian iyo Belle. Ayagoo sidaa u raadinayay Sebastian iyo Belle ayay waxay ku dhaceen ceel aad u weyn. Kadibna Sebastian waa uu ogaaday in Adolf uu ceel ku dhacay, waxa uuna bilaabay asigana in uu badbaadiyo saaxiibkiisa. Kadib markii uu macsalaameeyey, waxa uu hore u sii watay safarkiisa, waxaana markaana uu ka cararayay boolis, kuwaasi oo u dhaarsan, gaar ahaan askarigii aad ogeedeen ee markaana uu gacanta u qaaday Belle. Sidii ay u soo socdeen ayagoo aad u faraxsan ay waxay imaadeen xeebtaasina waxa ay rabeen markaasi in ay xoogaa iskaga nastaan intii ay xal kaga helayaan meesha ay ku hoyaadi lahaayeen.
waxaa dhacday markiiba ayagoo waqti ku qaadanaya xeebta Sebastian inuu weydiiyo saaxiibkiisa Belle, saaxiib talow ma heli doonaa hooyadayda. balse hal mar ayaa gadaashiisa waxaa ka qayliyey Pudgy asigoona wax u tilmaamaya. markiiba waa uu soo cararay Sebastian asigoona weydiinaya waxa uu arkay, balse markii dambe waxa uu ogaaday wax in ay jiraan. waxa uuna soo aaday dhanka uu joogay Pudgy, mise haddii uuba meesha soo koray waxa uuba arkay mid ka mid ah doomaha quusa oo kasoo dhexbaxaya badda gudaheeda. kadib Sebastian aad buu u farxay, waxa ayna bilaabeen dhammaantoodaba in ay fiiriyaan doontii badda kasoo dhexbaxday ayagoona hubinaya in la saaran yahay iyo in kaleba. markii dambena waxaa dhacday in ay dhankooda u soo dhaqaaqaan Sebastian iyo Belle ayagoona raba markaasi kuna fikiraya in ay galaan doontani. kadib waa ay soo baxeen, waxa ayna soo aadeen dhanka iyo doonta. mar kale ayay isku dayeen in ay ogaadaan doonta in la saaran yahay iyo in kale. waxa uu bilaabay Sebastian in uu qayliyo asigoona markaa ku celcelinaya yaa saaran doonta, balse markii dambe waxa uu ogaaday inaysan qofna saarneen oonan loo jawaabaynin. waxa uuna la hadlay saaxiibkiisa Belle, waxa uuna dhahay saaxiib inakeen aan kornay doonta. kadib waa ay soo koreen, waxa ayna bilaabeen qaybta sare ee doonta in ay soo koraan. markii ay sidaa u soo koreen ay si fiicanna u hubiyeen inaan la saarneen ayay waxay go'aansadeen habeenkaasi in ay iska seexdaan doonta dhexdeeda. waxa uu isku dayay qol ka mid ah Sebastian in uu furo si markaasina ay u seexdaan habeenkaasi, balse markii ay u furmi waayey qolkii ay wuxuu go'aansaday in qolka dushiisa uu kor jiifto. markiiba uu koray, waxa uuna dhahay Belle, saaxiib adigana soo kor. markiiba Belle waa uu soo koray, kadibna waxa uu dhahay saaxiib halkani ayaan seexanaynaa caawa. intaasi kadib markii ay sidaa wax waliba u dhaceen ay muddo jiifeen ayaa waxaa la gaaray xilligii habeenbarka ahaa. markii habeenbarkii la gaaray ayay wax waliba oo idil isbedeleen. doontani waa mid ka mid ah doomaha quusa biyaha, balse macno la'aan uguma soo bixin biyaha gudihiisa. dabcan waxaa la rabay in shaqo lagu qabto. markiiba wax yar kadib waxaa imaaday nimankii shaqada ku qaban lahaa doonta. waxaa dareemay Belle in qof uu soo socdo. markiiba waxa uu kiciyey Sebastian, waxa uuna Sebastian ogaaday doonta inba shaqo laga hayo oo alaab lagu soo rarayo. kadib shaqaalihii doonta ka shaqaynayay ayaa qalad sameeyeen. mid ka mid ah ayaa waxa uu sameeyey alaab ayuu inta soo qaaday ayuu u soo dhiibay mid kale, balse midkii loo soo dhiibay ayaa dhulka ku riday alaabtii. waxaa dhacday markiiba in kabtanka uu u soo cararo alaabtii dhulka lagu riday. waxa uuna bilaabay in uu ku qayliyo shaqaalihiisa. waxa uuna dhahay waa in aad si fiican ugu taxadartaan alaabta markii aad qaadaysaan. intaasi kadib waa la dhameeyey ugu dambeyn alaabtii la aruurinayay ee markaasi lagu rarayay doonta. kadib waxaa la dhahay waa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan uga dhaqaaqnaa meesha aana aadnaa meesha aan u soconno. Sebastian iyo Belle wax waliba kor ayay ka arkayaan, balse awood uma lahan in ay wax sameeyaan. intaasi kadib qolkii hadaatay ay furi waayeen, waxa u soo dhaqaaqay mid ka mid ah shaqaalaha. waxa uuna bilaabay in uu doontaba kaxeeyo. kadibna kabtankii doonta ayaa ku dhawaaqay in ay doonta dhaqaaqi doonto. markiiba waxaa maqlay arrintaasi Sebastian, waxa ayna arkeen doontii oo sii socoto oona ka sii tagayso xeebta. markiiba waxa ay bilaabeen in ay aad u cabsadaan. waxa ayna isku dayeen sida ugu dhaqsiyaha badan in ay doontani uga haraan maadaama ay xeebta ka tagayso. markiiba waxaa ka booday doonta Belle, balse Sebastian waa uu awoodi waayey in uu ka boodo. kadibna waxa uu go'aansaday in uu doonta ku sii jiro uusan ka soo degin, balse nasiib daro Belle waa uu ka soo degay doonta. markiiba waxa uu dhahay Belle dib u soo laabo. markiiba Belle waxa uu isku dayay in uu asigana dib ugu soo laabto doonta uu markiisii hore uu saarnaa. markiiba waxa uu bilaabay in uu badda dhexdeeda dhagaxaan ku dhex yaalay in uu soo kormaro, kadibna uu doonta ku soo boodo. ugu dambeyntiina waa uu soo badbaaday oo doonta ayuu soo koray.
markaana Sebastian waxa uu dhahay Belle aad ayaan kaaga murugooday, waxaana mooday in labadeena sidaas aan ku kala harnay. Balse waxaa dhacday markiiba dhankooda in uu soo aado mid ka mid ah shaqaalaha doonta, waxa uuna arkay wax cad oo hortiisa maraya, waxa uuna bilaabay in uu raadiyo, balse si waliba haddii uu u raadiyey waa uu arki waayey waxa uu hore u arkay. Sebastian iyo Belle waxa ay labadoodana isku dayayaan in ay ka dhuuntaan ninkani. Kadib waxaa dhacday markiiba ninka in uu aad u cabsado, waxa uuna bilaabay in uu meesha ka cararo, waxa uuna u cararay dhanka iyo kabtanka. Kadib Sebastian asigoo aad u murugaysan ayuu soo cararay, waxa uuna arkay in ay xeebta aad uga soo fogaadeen, waxa uuna dhahay Belle saaxiib, xeebta aad ayaan uga soo fogaanay, meesha nolo wadana ma naqaano. Intaasi kadib asigoo saas u murugaysan ayuu wuxuu dhahay haddaba waxaa waajib ah in aan xal keenno. Mise waxayba dareemeen in dhankooda loo soo socdo, markiiba waxa uu bilaabay Sebastian in uu meesha ka dhunto. Kadib waxaaba meesha imaaday kabtanka doonta iyo ninkii fuleyga ahaa oo soo waday, waxa uuna dhahay mudane halkani ayaan waxaan ku arkay wax caddaan ah. Kadib kabtankii alwaax ayuu kor u tuuray, waxa uuna ku riday xabad. Mise waxaaba meesha ka qaylin rabay Belle, Sebastian ayaana afka ka qabtay. Kabtanka waxa uu dhahay haddii meeshani qof uu joogi lahaa mar hore ayuu soo bixi lahaa, asigoona weliba balaayo iska dhigaya oona isweyneynaya. Waxa uuna dhahay waad aragtaan qofna ma jooga, soo sidaa ma ahan. Waxa uu dhahay kii feeraha weynaa, kabtan aad ayaad gees u tahay. Waxa uu ku jawaabay kabtanka, aniga ruuxaamada xitaa waan la dagaali jiray, mana laga yaabo qof bilaadan ah in uu iga cabsan waayo. Intaasi kadib ninkii ayuuba ka cabsiyey, waxa uuna dhahay ruuxaan markiiba kabtanka iyo midkii kaleba waxay bilaabeen in ay ka cabsiyaan midkii fuleyga ahaa. Kadibna waxa ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan qolalkooda. Kiina asigoo aad u cabsanaya ayuu dib u laabtay. Sebastian waxa uu maqlayay sheekada ay ku sheekaysanayeen dhammaantoodaba, waxa uuna dhahay ruuxaan waa fikrad wanaagsan. Xariifkii waa uu soo kacay markii uu dareemay in meesha lala joogo, waxa uuna bilaabay in uu kiciyo saaxiibkiisa. Waxa uuna dhahay saaxiib kac waa ku baryaa. Waa uu diiday in uu kaco, balse markii dambe waxa uu dhahay saaxiib ruuxaan ayaa imaaday ee meesha ka kac. Wuxuu dhahay ruuxaan ayaa imaada haha gadaasheeda ayay joogtaa, bal daaqadaas fiiri. Mise haddii uu fiiriyey waaba wax run ah oo daaqadii waaba la marayaa. Waxa markani ka sii daran maritaanka, waxa ay bilaabeen qeyli, taasi oo ah meesha waa in aad ka carartaan, waa in aad dib ugu laabataan xeebta. Hayey aad ayay u cabsadeen labadooda. Mid ka mid ah waxa uu isku dayay in uu orod qolka ugu baxo, balse midkii fuleyga ahaa ayaaba lugaha ugu dhegay. Kadib waxa uu dhahay war inteed u socotaa, bal eeg ilbaabka. Haddiiba ilbaabka la fiiriyay haddana waxayba arkeen ilbaabkii oo hortiisa orod lagu maray. Labadood waxa ay orod ugu laabteen sariirahooda, waxa ayna bilaabeen in ay aad u cabsadaan. Markii dambe kii fuleyga ahaa ayaa waxa uu soo xasuustay amaba uu suuraystay ruuxaantii runta ahayd. Waxa uuna bilaabay in uu qaaliyo asigoona u wacaya kabtanka doonta. Waxaa dhacday markiiba in uu kabtanka soo dego, waxa uuna imaaday qolka ay joogeen labadooda. Waxa uu dhahay wareedhe maxaad la oonaysaa, war ii sheeg maxaad u cabsanaysaa. Markiiba waxa uu ugu jawaabay waxa imaaday ruuxaan. Kii kalena markii uu arkay kabtanka waa uu ku booday. Waxa uuna dhahay mudane waa runtiisa, waxaan aragnay ruuxaantii haddaatay aan ka sheekeynaynay, waxa ayna soo istaagtay ilbaabka iyo daaqadaba. Haddaba waxaad ogaataa in ruuxaanta hadda ay nala joogto. Intaasi kadib waxa uu haddana fiiriyey
kii kale ee fuliga ahaa oo weliba aad u oonaya. Waxa uuna dhahay awalba waan ku soo qaldamay doontani in aan soo raaco. Intaasi kadib kabtankii waxa uu maqlay ruuxaantii oo qaylinayso oona dhehayso waa in aad sida ugu dhaqsiyaha badan dib u laabatiin, dibna aad ugu laabatiin dekedda. Kadib kabtankii ayaaba cabsaday. Markiiba uu soo baxay waxa uuna soo aaday dhanka ruuxaanta ay ka jirto, welibana asigoo aad u cabsanaya ayuu la soo baxay biskooladiisa. Markiiba waxa uu bilaabay in uu si tartiib ah u soo dabagalo. عودوا إلى المرفأ أسرعا. Markuu xabadda ku riday kadib waxa uu bilaabay in uu soo ceersado, balse nasiib daro ruuxaantii meel ay ka baxdo ayay weyday oo markani dabin ayay ku jirtaa. Kabtankii oo aad u cabsanaya oo biskoolada haysta ayaa waxa uu ku celcelinayaa isdhiiba isdhiiba, ma laga yaabo in aad iga fakataan. Haddaba asxaabtayda waxaa inoo balan ah qaybta xigta. Insha Allah la socod wanaagsan qaybta xigta. Hana ilaawina fiidiyogana like saartaan, sidoo kalena asxaabtiina aad u share garaysaan, janaalkeena aadna u sheegtaan Mawila Janaal in uu dib u soo laabtay. Aad baad u mahadsantihiin.